horta saxaafaddu aad bay soo garaacaysa iyo arrintan issue bay ka dhigeen dhinaca kale marka laga eego horta wax internal problems ma jiraan xidigaha geeska muran gudaha ma jiro dhinaca kale de kooxda xidigaha geeska 6 sano jirtayba marka laga reebo 8 bilood gudoomiyaha ka ahaa waxa laga yaabaa in culayska maamulka fanku leeyahay ay aad u adag tahay waliba niman caana in isku hayso oo maamusho inay adag tahay xaqiiqatan muddo 2 toddobaad ka hor ayaa saaxiibaday mid iyo si wadaraba ugu sheegay in aanan maxay heeday gudoomiye xidigaha geeska ka sii ahaanayn howlaha gaarka darteed laba qodob baa arrintaasina aan ka xusi karaa horta nolosha vision ka fog kan fanka ayaan kala yahay jaamacadana dhigtaa waqtigii fara badnaa xidigaha gelin jiray aan fanka gelin jirnay ama habeenimo u badneed ama dhinacyada nolosha ayaan jecelahay horta inaan geliyo marka laga yimaado taa qodobka loo muhiim ah jira oo sababay inaan maxay heeday hawsha ka yarnasto aan waxaas ka nin family man ciyaalkaygu ingiriiska ku nooleen deganayeen gabi ahaan waan ka soo raray halkan imika degan yihiin waxay u baahan yihiin waqti la siiyo waxay u baahan yihiin madrasad la geeyo waxay u baahan yihiin dugsi la geeyo arrimahaas oo dhan waxay keeneen in shakhsi ahaan aan isku wadi kari waayo hawlihii kooxda taagnaa markasta maalin kasta hawl taagan weeyaan oo ku faraxsanahay kulli toole maxay heeday kii qabta waa kii kale rag iga karti badan baa jooga xidigaha geeskuna waa dallad waa dhalinyaro ay hibadu madaysay way jirayaan oo way isku mabda anu haddaan xilka ka tegin xubinimo kama tegin wixii tale iyo wixii tusaale waan la garab taaganahay laakiin xilgudasho la'aantu hadday noqoshay saaxiibada in nolosha gaarka kaga mashquulo dee anu ma garan